بسم الله الرحمن الرحيم. ما انت waxaan joognaa degmada gobolka Sanaag. Marka kor baan ka sawiraynaa inkastoo aanay ay tahay waqtigii bishii 7 oo sarci uu hore u baxay kii dambena hadda la riday ka goor bartankeeda mar dhowna waxaan la kulmayaa rag odayaasha ahaa ee degmada ayaan iyagana si fiican u wareysanayaa. marka degmada guud kor baan aynu ka daawanaynaa oo aan idinka soo sawiray. waxa weeye muhiimku waa beeraha in loo soo jeesto oo dadku ay noqdaan dad wadankooda iyo dadkooda wax tara. wadankuna waxa weeye dadku wax horumar ku gaadhaan wax soo saarka. marka kolley xagga wax soo saarka iyo tayadiisa ninka odaygaaba inooga warrami doona oo warkeeda isiin doona oo aan wareysanayaa insha allahu. marka isagaa inoo faahfaahinaya. muhiimkuna waxa weeye inaanu ka warranno horta meesha iyo deegaanka oo aan siyaasadeysnayne si xog waraysi muhiima dadka dibadda iyo gudaba ay ogaadaan in wadankooda uu yahay hodan. marka taasaan hadda ku dadaalayaa. haddana odaygu u tegayaa waa ku sii soconnaa. marka hadda meel fog oo magaalada korkeeda aan ku taagnahay isagii hadda aan isarkaynaa. marka insha allahu meeshu waa xaggana buuray badan tahay. marka buurihii baan ka soo degaynaa. waxaan ku soconnaa odayaasha aan wareysan lahayn. number 1 uu ka yahay cabdi inkastoo waqtiguna nagu yar yahay haddana degmadan goob waa meel taariikhi ah oo war badan leh. dadkeenuna aanay fahansanayn war maanta maxaa dadka u cunayaan. marka maxay tahay waxaan loo keenayaa ee cuntadan ee khudraddan ee wadamada kale laga keenaya maxay yihiin waxa ay loo baahan yahay in laga bedelo. maxay tahay sababta nagu kaliftay inaan dadka tusno waxa u dana oo u fiican ee caafimaadkooda u fiican ee dadnimadooda u fiican u fiican mataqaanaa dhulkooda u fiican oo dhulka beeyadda laftigeedu environment-gu isbedelayaa haddii wax xun lagu beero ama la keeno. dadkuna haddii saas oo kale weeye hadday wax xun cunaan oo khudrado kala jaadjaada oo wadamada laga keenayaa aanay ahayn wax tayadoodu sarreyso bini'aadamka jimsigiisu waa xumaanayaa. dadkuna waxa weeye waa caafimaadkoodu ma fiicnaanayo. marka anigoo aan xaggaaba gelaynba oo aqoon saasa layga dharoon yahay hadda waxaan is helaynaa. waxaan u tegayaa oday oo cabdiraxmaan faarax cali madoobe. marka haddaan u sii socdaa cabdi odayaasha degmada weeye. marka haddaan u sii socdaa odayaashaan soo gaadhay hadda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ور عبد الرحمن أنا من الفعية. نعم الحمد لله. حياتك ورا. حيا خير يا بالواقع. توين صوب وغنوحة من ورده. بل هذا كليب كان أضياشي.
degmada ها ee taariikhdeeda hayay ها uu khibradda u lahaa haddii waxa laga beeraya meesha ها inaan iswareysano cabdi war adiga xaaladaada محمد حالد داد بين واحد سنتر cabdi in badan baad dedeganeed meesha tanaad joogtay ها waadna ku soo barbaartay ها ragga hantida ku leh ها waad ka mid tahay weliba khaasatan xagga beeraha kan goob ها marka aanu kaa wareysano ها horta way mise beerada meesha ku yaalla ilaa dayaxa markaan la gaadhin meeshan deegaankeeda xaggana dayaxa ka xiga soo maaha galbeedka ها xagga barigana waxa ka xiga dayaxa galbeedna gud ma ka xigta galbeedna gud ma ka absurtaan la isdhaafiyey ها marka cabdiyow beerahaas intaa hadda degmadiinu waa imise tiradoodu guud محمود ماشي marka hore markaan ku sheego horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay adiga qudhaadu waxaad ka mid tahay dadweynaha goob hantiga ku leh waa run ee naga maqnaa ee aan manaafacaadsan waa run maantana noo soo noqday waa run markay aqoontoodii iyo da'doodiiba korodhay haa maanta inaad noo soo noqoto horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa run waayo waxbaad nagu biirinaysaa waa run taa markaa su-aasha u soo noqdo aad i weydiisay horta deegaanku waxa la yidhahdaa marka hore afaaf waa run afaaf faali bay ku magacaab marmar yidhahdeen dooxada afaafood waay tog dheer baa mara oo badda ka gala ilaa shalcaw waay oo daadkiisu socdo ilaa oo biyahaasaa gelaya badda badda gelayo ilaa suruud buu ka soo noqdo daadka baddaas biyaha socobta waxay ka yimaadaan waxay ka yimaadaan ma dhagax bay ka yimaadaan mise waa webi mise waa suruud bay ka yimaadaan suruud madow meesha la yidhaaho waa dhagax fog oo iminka kale barhkeedii aynu joogno xagga badda iyo xagga buurtaba waay marka wax la yidhaha markay daafta usoo dhaadhacaan afaaf baa la yidhaahaa waay afaaf togaasaa loo yidhi oo sida faafan oo kale Itoobiya weeye haa markaa dayaxa iyo goob iyo gudno waxay ku yaaliin dooxada toga afaafood waxa ugu weyn meesha la yiraahdo goob waay waxay leedahay ilaa 70 beerood oo marka la isku dardaro hektarkooda noqonaya ilaa 100 oo la kala leeyahay ilaa 120 hektar noqonaya isku darkooda marka dad shacab leh wax dawladdu lahaan jirtay hore ee dawladda dhexe iyo ma jirin halka dayaxa maahan oo iskuulka iyo dawladdu ugu soo gabatay iskuulka agriculture halkan shacab leh waxaana la sameeyay 1900 iyo beerta حسن قوله وهريو كنتم كيلو سميي انتم ماشيين ساري وكتغي waxa ku xigay faarax cali madoobe oo hirgeliyay waa الله يرحمه waqtiga uu beeray odaygu wuxuu noo sheegay in basasha uu ka beeray beerta dadku inuu cuni waayeen oo yiraahdeen basashii cadmeed maaha oo maaha nooceed in xasan caamiyel la oran jiray oo cirgaaba dukaamo ku lahaan jiro caan ahaa بايل شباكتي بين وقرينا بساشا كوي عدنات بين وقرينا خبرتين isku dhadan yihiin nookeen horta waqtiga 60 kii baa la balaabay laakiin beeraha aad looma bixin lama noqon kacaankii siyaad bareeyimi mamnuuc bay ahaayeen odayga wax lagu yiri meel yar oo banaan oo cad iyo xasan qowlaba meel dhirta garaacinin oo beeraha laba oqol xoolaha ka cabaya laakiin kacaankii siyaad baree oo lambar 1 ujeedadiisu ahayd xagga agriculture iyo beeraha baayil hal fasaxo beereedka markaas la balaabay in aanu ka soo saaro dalag badan oo tayo leh marka meel maal gelinay mis dadku iyaga waxooda si dawladda maal gelinaysay waxa jiray khudraddu maanta ay badan tahay laakiin waxa jiray marketka ka xoog weynaa kan suuq bay lahayd hadaad in yar beerato Itoobiya khudrad lagama keeni jirin Yemenna lagama keeni Kenya lagama keeni jirin wuxuu ahaa kacaan hanti wadaaga marka khudradda yaraanu beeraa iyada ninka ku filaan jirtay waay taasa ilaa xamar baan geyn jiray laamiga dheer markii la sameeyay annaga siin jiray kaabashka maalintii laba gaaro kaabasha ka bixi jiray marka waxa baahida dabool jiray meel xitaa ilaa uu og yahay kacaanku og yahay bay ahayd xamar baan khudradda geyn jiray xitaa xamar tartan baanu la galay yaa rumaysanaya intaanu la galay baanu annagu ka badinay waayo shirkadaha beeran jiray xamar waaweyn laakiin dadka beeraleyda ay sisiniyo ay beeran jireen arrinkii khudradda xagga la barwan ka galay waqtiga anaga ka galay marka dawladda idin kabaysa mise dadku iyaga istaabulayay dawladdu waxba ma kabi jirin laakiin waxay noo xagga waxay xakamaysay in khudradda iyadu suuq hesho bay nooga mas'uulahaydo sharciga hanti wadaagay ku shaqeyn jirtayna sheegay inaan meel kale hanti wadanka kor loo qaado oo isku filaashay la gaaro marka labada gaaraan maanta iibiyo khudrada iyo
kontonka kiishaan berigii iibiya ama 20 kiish ها 20 kiish baa lacag badnaa هم maanta nin caana teel ama khudrad teel ah baa meel walba dunida ka keenay khudrad واي marka maanta market ma haysano ماشي waxaanu soo saaraa khudrad تيله tayo leh واي maxaa u badan khudraddiina laga horta yiraahdo maxaa horta u badan khudraddiina waxa u badan basasha واي waxa ku xiga kaabashka واي iyo vegetable-ka kale ay ka mid yihiin koostada واي carrot-ku ka mid yahay oo isna wax badan aanu ka beero uu ka mid yahay haddii beed maayo toontu wax ka mid tahay ay nooc oo khudradaanu ku beeraa laakiin waxa ugu badan kaabashka iyo baradhada iyo basasha geedweynta ee la gurtana maxaa ugu badan geedweyntana waxaanu beeraa farsuuga waa beeraa horta geedweynta ma badna xaqiiqatan واي saytuunka ugu badan واي iminka dhirta ku taala saytuunka ugu badan ee aanu iibino واي isagana waxaana dhiiri gelin waayay geedkan loogu yaalla ee kooban baanaan market u helin iyo suuq u helin abdi waxa xasuustaa anigoo yar bariga xamar la geen jiray muus iyo baa jiri jiray cambe iyo liin bambeelo waaweyn liin maca liin dhanaan wixii maxaa dhacay maxaa soo baxaan soo yari liinti waa jirtaa liin bambeelmo horta dawladda berigaa jirtay mid bay naga caawini jirto liin bambeelmada berigaa aad aragtay haddaan ku ilaado iyadoo neersare xamar laga keenay oo niman gacmaha ku sidan ba xamar laga beeray arrinka beeritaanka iyo neersariga iyo dhirta kobcinteeda wasaaradda beeraha nagala qayb geli jirtay laakiin intaanaynu waddanka xoreynay ninkii aynu ka xoreynay taa waan ugu darsanay wax u dhaama ma lahayn baad leedahay yaa wax u dhaama ma lahayn wax u dhaama ma lahayn tayeynta iyo shaqada aad aragtay bambeelmada xamar nin maxamed jubba la odhan jiray waa ka keenay xamar waay waxaan garanayaana hadduu geed bukoodo niman wasaaradda jooga khubara ahaa baa iman jiray agriculture yaqaanay oo xamarka iman jiray marmar beeraha kormeer madax bannaan ku mari jiray hadda wixii ma heshaan oo kormeer ma jiraan hadeer maya wasaaradii ma jiraan maxaa xagga tayada khudradda bal ka sheekay khudradda waxaan u malaynaa dadku aad uma yaqaanaan khudradda waxaan u malaynaa halka waxayna ka xigaa Itoobiya waddan ballaaran waay oo la yiraahdo Itoobiya biyo badan leh iyo dhul beereed badan laakiin ku xisaabsan wadamada la yiraahdo primitive waay sida gabowde hore wuxuu beera qadiimka ah dadku xaqiiqatan dadka qaar yiraahdaan iyadoo aan khudraddaasi jirin baa ka wanaagsanayd jiritaankeeda waayo bini'aadanka ay cudur keenaysa annagu waxaanu isleenahay nin ilbaxo dibadda ka yimid baa tahay khudradda qaaliga ah dadka VIP da ay cunaan qaaliga ah inaanu soo saareen la yiraahdo organic laakiin dadkan waxba uma kala xisaabsanoo bahasha xanjabuufta ee cutran ee Itoobiya ka soo baxday sumaha iyo lagu beeray iyo waxyaalaha aan caafimaadka dadka ka soo horjeeda haddii dhakhaatiir caalami heli lahayd ay gubi lahaayeen baa ay iibsadaan oo jaban oo dhul beereed badanna laga beeray taasaan u malaynayaa in ay keentay cudurro badan oo hadda dadka aanay aqoonin dadkeenu oo ku dhacay waayo muuska halkaas ka artay inuu madow yahay baradhadu halkaas ay ku qulbaysaa hortaada iyadoo qulun dhinaca ka jira dhinaca la iska jarayaa la baalkay oo la tuurayo basasha halka aan ka beeraana waxa shaqo kuma leh oo iyadoo aan qulmin xitaa waxay ilaa caleentu qalasho caleenta ka sarreysay saa ku dhamaato lagama yaabo inay qulubto waa run anigu arko kulli adiguna awdood garanaysaa oo waxa laga dhigaa marka wax la beerayo waxa jira wax nafaqo looga dhigo xaggayga dhulka ama Itoobiya arkaysa oo saxarada ah ama saxarada bini'aadanka ah ama saxara idinkuna isticmaashaan xaggan digo iyo waxa isticmaashaan idinku annagu waxaan isticmaalnaa digo kaliya iyo dhirta nafaqeeyo badan oo kuwa dibadda laga keenan aad uma isticmaalo dawooyin ma isticmaashaan wax kiimika ah dawooyin ma isticmaalo kiimika si oo lagu bacrimiyo dabiici ah bay u baxdaa digada iyo waxa iyagaasana ku shubanaa iyo waxyaalihii kale iyana wanaagsan ee aan ahayn kiimiko iyo qulumo ku dhalinaya xanuun waxba yuura ku dhalinaya baanu isticmaalaa laakiin kiimikooyinka Itoobiya ku isticmaal 3 biloodna waa noogu goodaa waayo iminka baradhada Itoobiya ka gooda wax jabuuf waa laga yaabaa xabad baradho oo yar oo inta lagaan leenahay inay la miisaan tahay marka miisaanka la isu saaro xabad baradho oo weyn oo xanjabuuf oo kiimikooyin ay ka mid yihiin urea iyo waxyaalo kale lagu buufiyey markiiba la jaray oo taas inay bil iyo bar ku goodaa laga yaabaa tan cimriga khudradda oo badan 3 bilood bay ku goodaa marka dheecaamadeedii oo dhan iyo caafimaadkeedii oo dhan khudrad
وأورجانيكا لكن تدكو أنا فاهمني صومنين إمك وحن مقلة حقيقة دي تدكو مربى إم حوشة فهمية وحن مقلة وحي شعلين سنة كلكم حنا كقاعدة بس شايراتي إلى 7 قاري أما 20 قاري أو بصرة ودقمة كلية ودقمة كلية بأن أنا كقاعدة وحلاي شيء تي كلوت الله وحكي لي إلا إيجو إنتن لتعالى ولا فهمي والله هو بصشي عرقابي قايل هذا أديك محاد عبده كلتنا أديك أو أقوانت هذا استعماله أو كل إن بدن كل حشري بيرح خطردنا يقعنا عفات كل حكي يقعنا dadka maxaad kula talin oran lahayd khudradda hadday ku weydiiyaan ma ta Itoobiya aad oran lahayd ma ta wadamada kale ka yimaada Yemen baad oran lahayd ma tanaad oran lahayd maxaad kula talin lahayd horta dadka waxaan kula talin lahaa horta number 1 horta marka hore xagga dawladda waxa la sameeyay hay'ad dhan oo la yiraahdo quality control waxa looga baahan yahay inay aqoon badan isticmaalaan inay shaygaas dhacay iyo shaygaas aan dhicin maaha إنك مشغولة لكن هو عافماتك خسرتها ستوي كم تا إثيوبيا حتى قاد كحنا كيمانية تراجس كاي مربو جيد عافمات قبيها يجيد عطران وسول له شوي هرت كواس إني شقيانو فهمان إثيوبيا اللي جسوا جنيه أي فهمان كوا إني فهمان وتشوشي أنا مركوري وكنترول كيف فهمان التورتي ها كواليتي كنترول كيف فهمان أنا وقاعد نجيد دعي وشيء راشن دعي طلباتنا waxaan oran lahaa horta teenu haddaynu ku filaanayso waddankeenu waa waddan qallalan oo caafimaad qaba inaynu waddankeena ka beeranno dawladduna ku dhiiri geliso dadka ay ku beeran lahaayeen khudradda iyo raashinkaba tan waddankan kula talin lahaa geeska afrika waxaan qabaa waddanka la yidhaahdo suudaan baa inala tartami kara keliya xagga khudradda caafimaadkeeda laakiin etoobiyana waa primitive yemenina waa sidaas kuwaas oo dhan anigu kulama taliyeen laakiin haddii waxayna ka saayid noqdaan dadka caafimaadkooda adigala hadashay anigu number 1 waxeenan dadka ku wacyigelin lahaa waxeenan dadka ku wacyigelin lahaa laakiin haddii la waayo inkastayna ka fog yihiin nimanka cimaamada waaweyn ee Suudaan inaag mari karo oo niman ku shaqeeya haddii ay scientific isaasan oran lahaa caafimaad ahaan markaad eegtay cabdiyo bahashu marka ay khudradda banaanka la keenayo marka banaanka la dhigayo qurmaysa qofka damage weyn ma gaarsiin kartaa sida aad garanayso oo waxaan ogahay ku sheegaa damage weyn bay gaarsiinaysaa bakteeriyada qurminaysa adna ku jirta waa noolahay khudradduna waa nooshahay noolaa dhaqdhaqaaqayna iyana waa noolaha dee taagan bakteeriyada qurminaysa ku jirtaa adna jidhkaaga la falgelaysaa waa ta kansarka keenaysa waayo halka quruntay waa sidii kansarkii khudradda oo kale waa ta kansarka inoo keenaysa bararka keenaysa shay intii quruntay iska jirto adigu cunto oo barar keenaysa qofkii iska bararaya oo keenaysa in hargabka iyo unuglaado infectionada ay bataan unuglaado qofkii oo waxa soo dhaqaatiir la furaya maalin walba dawooyinkeena xayaysiis iyo kun ka dhakhtar aad arkaysa dadku kuyu ku jiraan 10 dhakhtar oo iminka cirigaaba jooga baa 10 kaba loogu jiraa kuyu oo 300 oo qof taagan yihiin marka dadku waa wada bukaan socod waxayna ka qaadeen khudradda waxaan aaminsanahay dadka kuraasada ugu fadhiya in aanay cirka aan ku maqnaane hoos dadka u eegaan oo tayada ay cudurka ka qaadayaan iyo saarku yahay iyo sida arku yahay hoos u eegaan iyo shayga cuntada ah iyo waxa dadku cunayo loo ogaado cabdi waxa jira oo kalaan ka dhaxgalay dad badan oo qurba ku maqan oo beer dhulkan ku leh oo aan ogeyn inay mataqaana beeruhu anfac leeyihiin ama aan beeranba ama qaarkood ba ay beero kale kaga shaqeeyaan qurbaha iyagoo beerahooda halka yihiin ama mataqaana ay u baahan tahay dadkaas inay de kulay maalgashi iyo bal maxaad kula talin lahayd dadkaas oo ku dhiirigelin lahayd dadka maqan